We therefore see the CSOs as a veritable partner in articulating AMISOM positions to the Somalis, whether it is in the area of civil-military coordination, whether it's in the area of police recruitment and vetting. We need the understanding of the CSOs because they are very close to the people. shirkan maanta waxa ka soo ifbaxay in 2020 ka soo socdo sanadka dambe dhalinyarada in la maaragtay ayaga iyo dumarka iyo dadka waaweyn sidii ay u ogaan lahaayeen bal horta inay wadankan laga baxayo